الله وبركاته السو نقشة وعن موضوع هلكن كل مقنين وحارجينا إن موضوع يعني أقونتا قلينكا وحبرشدا يقرأ لك آخر كوساب سنة هلكن نوسي سعون دوران آخر سكستا وحولي هاي قاب آخر السجا وجوريا كاس أو وككس بدي أما أي سيين وياها وآخرسكا فكركا نولشة يلا فالجلكا وحيابها أجيسة كنعية قف كستا أو آخرستا وحولي هاي أسلوب السجا وجاره وحكسو قدبيو وحكو آخريو أو وحكو فهم مهم معها إن قاب كانوا وح آخريو أي تقاب كهو ناكسن سدا يصير مهم وهين قاب كانوا وح آخر إن تقاب كهو ناكسن لكن سجود ضدكم حكاية شيئا يعني مركا أن بوق آخريو بوقي محصو سنيو هذا دور معلم كهر اللي يرى أيها يقول تمد جورجية وهاي ويدين مركا أن بوق آخرينو أن بوق كده ما ينو بقول بيج لابو صدق بقول حدوني هذا أفكار نقمة صهاريسو محصو سنة إن معلومات كي بوق قرنا halka adiga aad soo gudbiso buuqa akhriday laga yaabo inaad soo daqiiqo ka hadasho 10 daqiiqo 5 daqiiqo dad kalena ay si saan uga hadlo si fiican uga hadlaan marka waxaan rabaa in aan la wadaago dadka marka qaabka aniga aan u akhriyo buugta waase ma aha qaabka ugu wanaagsan ee qof u akhri karo laakiin waa qaabka anigu aan u akhriyo waa qaabka aniga aan u fahmo waa qaabka marka aan buuqa dhameeyo ay igu soo harto macluumaad aan dadka u sheegi karo inta kor waxaan rabaa inaan xusuusiyo arrin mar hore u sheegay nin xakiim ah oo way arago garaad badan ayaa nin baa u imaad maalin wuxuu weydiiyey niyahow buug baan akhriyaa markaas buug markaan dhameeyana ma dareemo inaan aqoon yeeshay ama aragti yeeshay ama wacyi ii kordh ma dareemo ninka xakiimka wuxuu ku yidhi hoo habadan timirtii buu afka u geliyey wuu muudsaday isla haddaba waxaad dareemaysaa inaad awood yeelatay oo murqo yeelatay oo kala baxday maad dareemaysaa maya ma dareemaysid laakiin timirtaa lagu siiyey waxay la falgelaysaa jirkaaga murqaha dhiiga xididada si guud jirkaaga ay la falgelaysaa hadhowna waxay ku siinaysaa awood ama qaab dhismeedka jirkaaga ay gelaysaa saasoo kale wax akhrisku buug markaad akhrido waxba iskama dareemaysid 2 3 4 5 laakiin buug walba oo akhrido adoon ogeyn wuxuu wax ka bedelayaa aragtidaada qaab hadalkaaga fikirkaaga si aad u nooshahay si aad wax u gudbinayso waxyaabaha jeceshahay waxaad necebtahay hankaaga himilooyinkaaga waxaas dhan wax buu ka bedelayaa ama saameyn buu ku yeelanayaa adoo aan dareensanayn laakiin marka aad sanado badan aad buugta akhrido ayaa dareemaysaa kadib waxaad istaagaysaa buur dheer ayaad ku istaagaysaa oo aad garanaysaa hadda in uu wacyi ku furmay haddaba dadka aan xusuusanin waxyaaba ay akhriyeen ayaan rabaa inaan la wadaago sida aniga xasan ahaan aan u akhriyo anu mar saddexaad kusoo celinaya inaysan ahayn sida ugu wanaagsan wax loo akhriyi karo laakiin ay tahay qaab anigu aan u akhriyo oo aan aniga wax badan aan ku faa'iiday ko mar walba oo aniga aan buug akhriyayo waa inuu ag yaallo buug iyo qalin la'aantood waxba ma akhriyo mana iguma soconayn aan wax akhriyo sababtoo ah waxaan rabaa in aan qoro wax walba oo aan ka helo ka heliddu waa dhowrsi haddii uu qaab ku dhigan yahay wuxuu i qanciyo tusaale ahaan asluubka uu qoran yahay farshaxan suugaan aad u qurux badan erey isa saaran cabiraad balaaqa ay ku jirto waan qoranayaa haddii ku jirto dhacdooyin mudan in la xusuusto sida taariikh hebel magac shakhsi magac magaalo waan qoranayaa haddii ay tahay afkaar aan taageersanahay oo buug ku jirta waan qoranayaa haddii ay tahay afkaar aan diidanahay oo buug ku jirta waan qoranayaa waa markaad haysato qalin iyo warqad asluub kalaa jirta iyadana tusaale ahaan isbuucan buuggan aan akhriyay buuggan waxaa la dhahaa xusuus qor gabar ku nool Berlin 8 isbuuc oo dagaal ka socday magaalada Berlin ayaa waxay qoraysay xusuus qorkeedii buuggan waa buug muhiim ah marka la fiiriyo koow dagaalka labaad adduunka iyo saameynta uu lahaa si dal weyn oo awood leh oo Yurub oo dhan rabay inuu qabsado loo qabsaday oo Jarmalka ah ciidamadii Ruushka ahaa ee meeshii magaalada Berlin qabsaday iyo dadkii Ruushkaasi u falgaleen dhibaatooyin meesha ka dhacay kufsi dil barakicin waxyaabo badan ay gabadh buug ka shaqeynaysaa marka buug xalaqo kale ka shaqeyn doono ma aha tan danta aan ka leenahay laakiin waxaan rabaa in aan la wadaago dadka akhrinaya la wadaago qaabka aan wax u akhriyo buugga markaan soo qaadno tusaale ahaan halkaasoo kale waad aragtaan waxaa ku qoran tacliiq aan saaray ayaa halkaa ku qoran halkaa waxaa ku qoray wasf mubhir buugga af carabi waxaa
waa tilmaan aad u qurux badan ayay gabadhu tilmaantay dagaalkii. waxaan ku qoray halkaasaan ku qoray halkan waxyaabaha la yaab kale meesha waxaan ku qoray in kasta oo gabadhan ay leedahay 10 jeer ayaa lay kufsaday, haddana dadkii kufsaday iyo ciidankii ruushka wax nacayb ah uma muujinayso, wax salbi ah mashaacir salbiya uma muujinayso. cagsiga ay nici lahayd ee waa nicbay qori lahayd, waxay raadinaysaa in ay ogaato waxa ay iyagu yihiin iyo maxaa kufsiga keenay, dhibku xaguu ka socdaa, waxaas ayay halkan ku qoraysaa. saasaan u qoraa. tusaale ahaan mar kale waxaa jira erayo aan ka helaa jira halkan oo kale, hoostaan ka xariiqayaa. taas waa marka aan qalinka isticmaalayo. commentiga weli wuu socdaa. halkan oo kale waxay laga sheekeynayaa xilliga waxay ka sheekeynaysaa xilliga dagaalada socdaan qofku inuu guursado ma fiican tahay iyo ma xun tahay. markaas maxaan u guursanaynaa sababtoo mar raba leedahay inaan ay taam ama agoon dagaal aan adduunka keeno ma rabo, ay gabadha ay halkan ka sheekeynaysaa. halkan markaad u gudubto waxaad arkaysaa inaan qalinkii iska daayay oo aan isticmaalay kalarka aan isticmaalay. meel walba oo soo jiidata kalarkaasaan u isticmaalayaa, midabkaas. waa aragtaan way soconaysaa. waad aragtaa okay. meeshan oo kale waxay ka sheekeynaysaa dhibaatada dadkii qabsaday, biyo la-aanta, gaajada, rafaadka. anna waxaan ku darsaday commentigayga dadka Soomaalida ee dagaalamay iyo mashaakilka iyo si isugu eg yihiin ayaan ku darsaday. hoostan waaka ilaa uu buugu ka dhamaado. meel waxaa jira marka baaragraaf dhan oo cajabinayaa jirta. tusaale ahaan ama aan rabo inaan ku laabto bilowgiisa ayaan calaamadaa saarayaa ilaa ay taa u dambaysa. waa kaas buuggii oo dhan taqriiban meel walba oo aan ka helo ama cajab gelisa ama saasaan u qorayaa. taas marka waa marka tacliiq yar aan qorayo ama aan rabo inaan soo xusuusto. buuggii waan dhameeyey. inta aanan buuggii dhammaynin ayaa waxaa jiri karta afkaar buuggii dhexdiisa ka dhalatay ayaa jiri karta, ama buugga ku taageer ama buugga ku diid. waxaan sameynayaa waxaa ii yaalla buug ayaa ii yaalla. buugga muxuu ka sheekeynayaa? buug ayaa ii yaalla agtayda. wax allaala wixii buuggaas iga soo baxay ee aan comment ahayn ee aragti fiican oo dee la qori karo oo buuggan aan lagu qori karin ayaa aan meeshaan ku qorayaa. buuggaas ayaan buugga ku qorayaa. 3 bay marka noqonaysaa. markaad buuggii dhamayso 3 ayaa kuu soo baxaya. kow, mid buug qalin caadi adoo haysta ama qalin bira ha ahaado ama qalin beesal ha ahaado, midka rabto adoo qalinkaa haysta aad buuggii hoosta ka xariiqday, adoo qalin kale isticmaalaya, qalinkii kalarka aad isticmaalaya adoo hoosta ka xariiqday, erayo qaar ama afkaar qaar aad buug ku dhex qortay, iyo mid intaa ka weyn oo buuggu qaadi karin oo buug wal ku qortay. marka aad buuggii dhamayso ee aad gabagabayso buuggii ayaa dib waxaad isku celinaysaa wixii aad calaamadaysay, wixii aad qortay, kii aad hoosta ka xariiqday, kii aad kalarka marisay, buuggan goonida waxaad ku qortay, wixii oo dhan baa dib u soo celinaysaa. mar labaad ayaad meel gaara ku qoranaysaa ama si gaara aad u akhrinaysaa. kadib buuggii waxaa laga yaabaa buug markuu yahay 300 page ama 200 page buug markuu yahay waxaa laga yaabaa in aad calaamadayso markii majmuuc la isu geeyo 20 page inay noqdaan baa laga yaabaa. 20kii page ah haddana si kala meeraysaa. waxaa kuu soo haraya 10 page wax u dhigma oo mid ah oo soo koobaya afkaarta ugu weyn ee buuggu xambaarsan yahay. laana buug kasta waxaa ku jira waxyaabo aan loo baahan in la sheego ama adii macno ku sameynaya ku jira buug kasta. buug walba wuxuu leeyahay waxyaabo adiga aan ku habboonayn lama rabo. afkaarta weyn ee muhiimka ah ee adiga saameynta kugu leh waxay noqonayaan ugu bannaan markaad isku soo xooriso 3 book ama 4 book ay noqonayaan. taas way marka midda adiga wax ku reebaysa maskaxaada dhigaysa dadkana aad u gudbin kartid.
asluub kala duwan dad ku leeyihiin dad baa waraaqa kala rag isticmaala tusaale ahaan meel walba oo uu ka helo wuxuu ku dhejinayaa kalar oo isaga jecel yahay meel walba oo uuna ka helin wuxuu ku dhejinayaa kalar kale oo isagu uu neceb yahay meel inuu xusuusto rabo wuxuu ku dhejinayaa kalar gooniya buugga hadhow markuu dhammaado boqolaal waraaq oo kale kalar ayaa ku dhex jira oo dadka qaar dadka qaar ba waxay isticmaalaan qalin qori isticmaalaan hoosta ka mariya ama pencil waxay doonay haato laakiin ani asluubka aan leeyahay waxa weeye kow marka aan bilaabayo buug in aan haysto warqad iyo qalin in aan haysto qalin color leh waa markaan ka hadlayo waa markaan ka hadlayo buugga caadiga aan haysto marka buugga electronic yahay isagu waa arrin kale waa inaad haysto warqad iyo qalin adoon warqad iyo qalin haysanin wixii aad akhrido maskaxda bini aadanuhu gaar ahaan xilligan aan nool lahay oo dadkii halmaan badan iska jiro duruufo badan lagu nool yahay mobilka electronic waqti badan ay qaateen way adkaanaysaa qofkii inuu wax walba uu maskaxdiisa uu ku qoro way jiraan dad aad u fahmo badan oo buugga akhriyaan aan mar labaad ku noqon una baahan inay mulaaxadaad iyo waxyaabo gaar ah ka qortaan laakiin umuuman aniga marka aan buug akhrinayo asluubkaas ayaan isticmaalaa kaas ayaa ay caawiya kaas ayaa iga dhiga markii uu buugga dhammaado qof buuggii dhihi kara waxaasaa ku jiray aragtidaasuu lahaa saasuu diidanaa buugga markaan akhrinayana waxaan ku akhriyaa il diidmo sababtoo ah waxaan ka duulayaa marka il diidmo ku akhriyo waxaan ka duulayaa mabaadida aan aaminsanahay ha noqoto dhaqan ha noqoto diin ha noqoto akhlaaq ha noqoto dal ha noqoto dad ha noqoto siyaasad marna waxaan buugga waxaan ku akhrinayaa il taageeraan ku akhrinayaa buugga mabaadida aan nolosha ka aaminsanahay ha taageero saa darteed marka aan buugga saa u kala baxiyaba haddii uu mabaadidayda markiiba ka hor imanayo waa inaan soo qabto oo halkaa mabaadida ka hor imanaya hadduu mabaadidan aaminsanahay uu taageerana waa inaan buugga mabaadida u taageeraya laakiin aad buugga intaa iska akhrido dhamayso adoo waxba kala bixin caqligaaga ayaa wuxuu yahay caqli cajsilow ah oo aan gurfeynaynin oo la doodaynin oo aan la dagaalaynin oo aan la qosaynin oo aan la farxaynin buugga si guud waxaan u baahanay marka si aad u xusuusato wixii aad akhriday inaad yeelato qaab akhris muhiim ah oo kuu suuragelinaya in waxa aad akhriday aad xusuusato aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh